dadka ku nool xaafadda xeero ee dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa ayaa si adag waxa ay uga cawdeen guddida COVID-19 ee Soomaaliland waxaana sheegeen inay deegaanka xeero oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa halkaasi lagu xabaal ololiyay dad ay sheegeen inay yihiin dad ajnabi ah oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 dadweynahan ayaa waxa ay bulsha TV ugu warameen dooxa xeero oo ah dooxa ay ka dhacday xabaal ololintu waxaanay bulsha TV uga waramayaan inuu dooxan yahay dooxa geedeeble ee magaalada Hargeysa biyaha ka cabto waxaanay walaac adag ka muujiyeen in dhibaatooyin ba'an oo dhinaca COVID-19 ay halkan ka soo kordhi karaan iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa ay yiraahdeen waa shacbiga reer xeero weey xeero sida waday mawlid hore u sheegay wax weeye wax loo qabto iyo wax la siiyo iyo toona midna ma jirto sideedaba waxa jirta oo kale ku sheegaya saxafi waxa ku sheegaya dhacdada meesha ka dhacday ma aha wax la sahashan karo ma sida uu sheegay taliyaha saldhigga ee Adashiina oo markii hore markii loo sheegay sheekada yimid mooyaane cid kale dawladda oo nimankan Ismaadiye baan qabaano haddaad wasiir garaacdo imika tiraa walkaas xaalad ka dhacay telefoonka ka qabanay cidi askartaas in laga celiyay waxaan u dhaba galay waxaan u soo galay halka yar dooxa afkiisa waxaan dhageysanaynay marka inaan wax sira ka helno wixii sirahana waxaan ka helnay $20,000 noo dir iyo dhahawshina dhamaysta yaa lacagta noo dir lacagta waxa lahaa nimankii gubayay ee ahaa 30 nin kama yareen intay meesha gubaysay dadka marka waxaanu aragnay waxaanu soddon kaanin inay markaa leeyahay $20,000 noo dir ka waramayna dhacdo ka dhacday dooxii xeero oo hadal bay nagu dhacday dhacdadaas waxa naloo keenay meydad la sido oo dooxii aanu ka cabaynay lagu aasay ya dadka yagii sheenta ka arkayna nin walba beel baa lagu hortoogto ciidan baa ilaalinayay waxaanu baaq u diraynaa oo halkan baaq u diraynaa oo qaylo u diraynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka haddii la badankeeyo maamulka Soomaaliland oo dhan waxaanu ogaysay waxaanu mid anigu shantii iyo barkii anoo shifakay dabeedna askar heegana waxa iga hor yimid dadkii ay soo celiyeen ayaa iga hor yimid maxaa waxay yiraahdeen dooxii lama marayo ciidan baa taagan markaa 5 baabuur oo 3 la dibadda joogaan labana gudaha ku jiraan kolka la kaabari aan ka arkay ayaa taagnaa ciidanku halka aad arkaysaan iyo ilaa kaynta dambe toban talaabo isku jira labada qarbana way taageen dabadeed halkaas la iga celiyay kalid baan u aragnaa nimanka haday dawladdu wax ka qaban weydo ilaa taliyaha buu misalay haddana iyadoo haddaba gashay dawladdu soo sheega ka mid ahaa waxaa la hadlay wasaaradda caafimaadka waa la hadlay waan ku imanayna bay yidhaahdeen nooma iman ilaa saldhigga Adashiina way noo yimaadeen wax halkaa weerarkeen wax ka qabteen ma jirto ilaa xalay ilaa maanta saasaan u taagnayn meesha iyadaasi waxaa ku leeyahay dooxii geedbee la tegayay ee biyaha laga cabayay halkaa Hargeysa ka cabaysay xanuunkaasaan arkeen waxaasaan arkeen lafaha madaxii bay gubina way ayay kaga tegeen meesha intaa leeg baa u dhahay carruur baa u leenahay maxay dad yaryar baa jooga dooxii laga cabayay Hargeysa waxaa loo keeneen wasaaradda caafimaadka fogada waxa leeyahay xanuun bay loo keeneen marka labaad halka xeero waxa waa meel laga cabo oo midkii halkii laga cabay caruus ka cabaysay xeero ka cabaysay oo halka cagaf taagan tahay ayaa laga cabo ceela halka meedka la keenay dawladda dadka dawladda samaha waa wax laga qabtaa weey hadii laga qaban waayana deegan adan hay'adkii wixii askar baa ilaalinaysay markii ugu horeysay ee gaari xaaba lagu sida ayaa yimi gaarigii markuu cadaan ka dhigay xaabadii ayuu kadib ambalaas baa meedka lagu siday laga dajiyay meedkii la garab dhigay dabkii markuu baxay baadrool baa lagu gubayay xaabada ma cadeyn kara laakiin 11 habeenimo askartu ka rawaxday iyo dadkeena shacibkeena gubay dhaqaatiirina way ku jirtay daraad bay sheekadu ahayd hadday ahaydna baabuur fara badan ayay ahaayeen dawlad bay ahaayeen halkaas dooxii xeeray keeneen waynugu halkaas ku gubeen meed
وكا عافماد ما جرو وأدركيسا هورين حيرة لو ما أقونسنين waxaan ugu dhacay in anagoo halkan joogna la keenay meyd dabeetana halkan iyo xaabo lagu gubay dabeetana qofkii horeeyay yimid qori lagu qabtay la soo eriyay uu noo soo waramay dooxii waxba ka dhacay qori lagu qabtay war waxaas ma dhacayaan meed waanan tahay haddana labaan isku soo raacnay qori lagu qabtay waanu noqonnay haddana laba kale ay soo raacay qori lagu qabtay waanu noqonnay dabeetana waxay nagu gaadhay 12 intaan is urursanay markii dambe aan soo wada urursanay ayay wixii ka sii gaarsiiyeen aakhirkiina naxashiyo kulul bay nooga yaaceen dabeeto aroortii waxaanu la hadalay qolada caafimaadka ayaanu la hadalay way noo iman waayeen saldhiga aadan shiinaanu la hadalay saldhiga aadan shiinaa noo yimid wuu la hadlay way noo yimaadeen dabeetana kuwii caafimaadka markaanu tusnay meeshii way ka diday way u dhawaan waayeen waxay nagu yidhaaheen waxaanu dabeetana waxaan sidee loo odhanayaa maati iyo carruur ayaa meesha noo joogtay waxay yidhaaheen odayaashiinani gaar ka haya idinkuna ha taabanina annagaa idinku soo noqonayna wax ka qabanayna markii aanu casarkii joognaynu la hadalnay telefoonadii way naga qaban waayeen laba isqabta maaha labadaas